sida ay u qorteen haddii dhinac loo fiiriyo waxaa ka habboon fiirada dowladda kale laanta fulinta waxa waaye ayaga shalay kuraasta kusoo fadhiyeen waxay dhaheen ilaa ay waxna bedelo waqti ma laha horta teeda kale waxaa la rabaa marka la sameynayo arrinta hadda ka dhawaajiso ah inta bedel ka imaanayo waa in lagu heshiyaa mucaarad muxaafid lagu heshiyaa kuraasta la qaybsadaa ilaa ay madaxweynaha ay maaragtay waxaas oo dhan inta la isku imaado la qaybsadaa kabacdi muddo lagu sugi karo doorasho laga gaari karo arrimahaas wax lagu sugaa ma ogi anaa kursiga shalayna ku fadhiyo maantana ku fadhiyo doorashona ma rabo xilgaarsiyahana ahay waxa suurtagalaya ma xilgaarsiya ma tiiday kursiga adaa u baahan inaad sii joogtid maadaama ay kugu adagtahay inaad tartan geshid marka ma ogolaanaysa maaragtay in maaragtay uu tartan meesha ka qabsoomo marka shacabka Soomaaliyeed waxaas waxay u baahan yihiin male waxay u baahan yihiin doorasho dhacdo oo lagu kala adkaado waaya sidee ugu fudud doorasho ay ku qabsoomi kartaa doorashada waxay ku qabsoomi kartaa laba maado ugu fudud baarlamaanka hadda waqtigiisa dhamaaday in maaragtay la siiyo inay maaragtay madaxweyne doortaan oo ay madaxweyne ay ka bilaabaan inay doortaan kabacdina ayaga maaragtay doorasho u dareeraan waqti kabacdi taas tan ugu fudud waay waxaa kaloo fudud maaragtay doorashadii hore oo kale doorashadan iyo ayada waa isku mid hal meel ay dhib ka keenay oo hadda korna aan ka sharaxay labada gobol laga dhigayo in laga joojiyo hal gobol laga dhigo arrintaas doorashada fududeyn kartaa sida ku dhici leedahay fududeyn kartaa isqabqabsiga yareyn kartaa maadaama maaragtay ay haystaan madaxda oo gobollo isku haystaan sida isku haystaan gadow kale aysan ka tanaasuleynin labada dhinacba xaq uu leeyahay Axmedow inuu meeshii uu maaragtay maadaama maamul goboleed uu yahay inuu madaxweynaha Jubbaland inuu meeshaasi uu maaragtay madax u magacaado madaxweynahan uu maaragtay gacantiisa ka bixiyay marka halka kaliya loogu gudbi karo waxa in hal magaalo laga dhigo doorashada waa gartay su'aasha la isweydiinayo waxay tahay waxaad hore u sheegtay in baarlamaankan waqtigiisa uu dhamaaday sidee suurtagal ku tahay in madaxweyne uu doorto kadibna uu u dareero doorasho waxay suurtagal ku tahay waxa isku raacay dhammaan siyaasiyiinta maamul goboleedyada si wadanka maaragtay ismareewaaga loo saaro loo ogolaado doorasho inay dhacdo markaas dadka shacabka Soomaaliyeed way ku qancayaan mar haddii doorasho dhacdo ama kii hore jooga ku guuleysta ama qof cusub ha imaado ku guuleysta laakiin dadkii kuraasta ku fadhiyo rabin inay doorasho galaan oo doorasho ka cabsanayo inay kusoo guul dareystaan ka cabsanayo meeshan iska sii fadhiyaan dhaan anaga xilgaarsiinaan nahay wax ma aragtay shacabka ay ku qancayaan ma taasi mana la ogolaan karo arrintaasna waxay keenayaan maaragtay waxa aan la mahadinin waa gartay arrimaha doorashooyinka marka laga hadlaayo dadka qaarkood waxay tilmaameen in arrimaha khilaafka baan uu ka taagan yahay uu u dhaxeeyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland waxaa ugu dambeysay dhacdadii wasiir janan ugu soo biiray dowladda hadal hayntii gobolka Gado ku biiridii janan maxay ka bedelaysaa arrinta Gado